Assalaamu calaykum saaxiibayaal, halkani waa Caasim Media. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Gabadhani waxa ay kala kulantay ninkeeda habeenkii koowaad ee aqalgalkeeda, arrin aysan marnaba ka filanaynin in ay kala kulmayso saaxiibkeeda ee adduunka ugu jeclayd, taa oo keentay markii dambe in ay dalbato furiin degdeg ah. Kusoo dhawo muuqaalka oo dhammaystiran, balse intaan u guda galin muuqaalka, waxaa si xushmad leh kaaga codsanayaa daawade inaad like saarto muuqaalka. Haddii aad channelka cusub tahayna nagu soo biir oo taawo subscribe furo gambaleelka si aad u hesho muuqaaladeena isla marka aynu soo gelino. Wiilkani waxa uu si saa'id ah u jeclaaday gabar uu ka helay aragtidiisii koowaad. Wax badan ayuu isku dayay in uu la hadlo, balse waa ay ka diiday in fursad uu kula hadlo ay siiso. Balse wiilkii kama uusan niyad jabin in uu raadiyo gabadha. Wada kasta oo kula kulmi karo waa uu soo maray. Isku dayo badan kadib waa uu la kulmay asagoo u soo maray wiil saaxiibkii ah. Waa uuna la fariistay asagoo aad ugu faraxsan, sababtoo ah waxa aqbashay la kulankiisa gabar oo aragtideedii koowaad uu ka helay. Waxa uu ahaa mid mar walba la kulma ilaa oo markii dambe oo u bandhigtay jacaylka uu u qabo, ayadana waa ay ka aqbashay. Waxa ayna isku waafaqeen in ay isguursadaan. Waxa uuna ka soo doontay waalidkeed, waana la siiyey. Waxa ayna samaysteen xafladda meherkooda ama faraantigiliskooda. Gabadha waalidkeed waxa uu doonayaa in la dedejiyo xafladda arooska gabadhooda, laakiin wiilka waxa uu doonayaa in waqtiga xafladda arooska dib loo dhigo. Balse gabadhii ku mehersaneed ayaa su'aal gelisay rabitaanka saaxiibkeed. Waxa ayna isweydiisay sababta uu u jecel yahay in dib loo dhigo waqtiga xafladda arooskooda. Ugu dambeyntii wiilkii ayaa ka baqay in dib u dhigista xafladda arooskooda uu doonayo in si qalad ah loo fahmo asaga. Waxa uuna ogolaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan u qabsoonto xafladda arooskooda. Ficil ahaantii arooskii ayaa qabsoomay sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxa ayna dhigteen xaflad aroos oo aad heerkeeda u sarreeyo. Kadib markii ay xafladdii arooska dhammaatay oo la aqalgeeyay gabadhii, waxaa dhacday arrin cajiib ah. Xaqiiqdii maalmahani lamaanuhu waxa ay u yihiin maalmaha ugu fiican noloshooda, balse wiilkani waxa ay u ahaayeen maalmihii ugu xumaa ee soo mara noloshiisa. Waxaana dhacday in ay ogaatay xaaskiisa in uusan arrinta sariirta ku fiicneen, isla markaana habeenkii ugu horreysay ee aqalgalkooda oo ku fashilmay in hawshii loo baahnay oo qabto. Waxa ugu sii daran arrintaasi waa uu ogaay in ay xaaladiisu saan tahay, balse uma sheegin saaxiibtii oo waxa uu ka baqayay in ay ka tagto ayna diido in ay guursato, sababtoo ah aad ayuu u jeclaa ayada. Waxa ay ka murugootay gabadhii. Waxa ay kala kulantay ninkii ay aroostay. Waxa ayna ka dalbatay in uu furo, laakiin asaga ayaa waxa uu ka dalbaday in ay dadka hortooda ku fadeexeen, sababtoo ah hadduu furo hadda waxaa arrintiisa ogaanaya dadka oo dhan. Waa ay ka aqbashay in ay ninkeeda fadeexeen, ayada oo ku tiri waa mudan tahay in lagugu fadeexeeyo dadka hortooda. Haddana waa ay ka laabatay go'aankeedii. Kadib markii dhowr isbuuc ka soo wareegatay arooskoodii, waxa ay la kulantay wiilkii ninkeeda saaxiibada ahaayeen ee kaalinta weyn ku lahaa isbarashadoodii. Waxa ayna u sheegtay arrintii ay kala kulantay ninkii saaxiibkii ahaa ee ay la aqalgashay. Wiilkii ayaa u dhaartay gabadhii. Waxa uuna ku yidhi, wallaahi waxba kama ogeyn arrinkiisa, haddaan ogaan lahayna kamaba shaqayseen isku soo dhawaanshihiina. Waxa uuna bilaabay in uu ka faa'iidaysto arrinta ka dhex taagan gabadhani iyo ninkeeda, asaga oo durbaba bilaabay in uu soo dhawaado gabadha. Sidaa ayuuna arrinta ku waday ilaa markii dambe ay noqdeen saaxiibo aad iskugu dhow. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu damcay in uu gurigiisa u wato si uu xumaan ula sameeyo, asaga oo og in ay war ka soo celinaynin arrinkaas, sababtoo ah waxa uu la socday ee uu ogaa waxa ay kala kulantay ninkeeda. Ficil ahaantii iyadana waa ay ka ogolaatay arrintii. Waxa ayna u raacday gurigiisa si waxa uu ka rabo ay ugu samayso. Maalmo kadib ninkii ayaa haddana sidoo kale ka codsaday in ay u raacdo gurigiisa si ay galmo xaaraan ah u sameeyaan, balse markaani waa ay ka diiday. Waxa ayna ku tiri, waxaan rabaa in aan baxo. Waxa uu sameeyey isku day badan si ay u samayso waxa uu ka doonayo, balse waxa ay ku tiri, waxaan ka xumahay arrintii aan horay u sameeyey. Alla ayaana dambi dhaaf weydiisanayaa. Waa ayna ka dhaqaajisay. Waxa ay qaabishay oo ay la fariisatay ninkeedii. Waxa ayna isdhaafsadeen hadallo macmacaan oo lamaano kasta oo isjecel ay isdhaafsadaan. Kadibna waxa ay ka dalbatay in ay dhakhtar aadaan si uu isu daweeyo. Ficil ahaantii hosbitaal ayay aadeen. Dhakhtarkii ayaana u sheegay in dawadeeda la helayo arrinta uu ka cabanayo. Waxa uuna ku yidhi, haddaa mar hore ii imaan lahayd
xilligaani waad ka caafimaadi lahayd. Intaa kadib waxa uu qaatay dawooyinkii loo soo qoray, kadibna waa uu caafimaaday. Waxa uu Alle siiyey ilmihiisii ugu horreeyay. Waxa ayna ahaayeen intaa kadib lamaane ku nool nolol farxad iyo reereen ku dhisan. Daawadayaal, waxaa intaasi nooga eg muuqaalkani maanta. Haddii aad gabagabada muuqaalka nala soo gaartay aadna laag saarin muuqaalka, waxaa mar kale kaa codsanayaa daawade inaad laag dhahdo muuqaalka, nagu soo biir oo taabo subscribe haddii aad channelku cusub tahay. Tani intaan ku kulmayno muuqaal cusub, nabadgelyo.